الله عليكم ورحمته وبركاته مروي waxaynu joognaa mudan aynu in badan sugaynay soo gaaritaankeeda waxa aynu soo galowna hayaan dheer oo mashruucan ay wasaaradda tamarta macdanta gacanta ku hayso oo kamid ah mashaariicda faraha badan leh ee ka socda wadanka ee bangiga adduunka uu maalgelinayo oo mid kamid ah laakiin runtii ah ka ugu lacagta badan isla markaana qorshuhu ahaa ama qorshuhu yahay inuu noqdo ka ugu saameynta badan leh ومشروع سو كبشدا كورنتدا جمهورية الصومالية. ونحن دونا محوها بورما إيو محوها إيو قشهيجا لكن جودهان وحطابنا يا صدق قيوبة كلا دول مشروع. كو وحطابنا يا إن لو كبعيو كابياش كورنتا دارينت إيو كابياش كورنتا كيدينتا يدل كورن. جارهان وإمك مشروع كوبلابي مجالة بربرة إيو مجالة بورما. مجالة بربرة وكيف مدحوينه نور رجع حدقي كونتراكتر كينا واقو جولستو هذا الشغل يبوضا كباسيتي كذا قبنا يانا واللي هي صد ميجا وات أو ستوريج يلا 20 ميجا وات أو سولار بانليسا يو صدقيه طبعا يبقى كيلومتر أو أحد كهواوين تبقى تعالوا كل يهوس مرة يوم نقول يلي حلا 20 سنة نقول هل كمجال هذا بورنا حد أنت عليك وأن هرنا لوجا قبلين لجمال كل يوم مجال هذا بورنا ومانتا aynu joogno madaxweyne ku-xigeenka ay sharaf inoo tahay waxa weeye dhagax dhiga inaynu maanta iyo site wareejinta contractka lagu wareejinayo capacity gaaraya sida halka idinka muuqata 8 megawatt oo muxuu ahaa solar megawatt wad qiyaasi kartaa waxa weeye muxuu ahaa xaddigaasi iyo sidoo kale waxa weeye 20 megawatt oo baytiriya dadka kaydiya iyo 5.5 kilometers oo ah xadkaha waaweyn ee dadka qaada ee 33 kV ga oo kor iyo hoos mari doona marka haddii la isku daro noqonayo 11 muxuu ahaa kilomitir isku noqonayo mudane madaxweyne ku-xigeen mudanayaal iyo marwooyin waxaa inoo sharafa hanaankaasi oo sidii dhiijigu iga horreeyey uu tilmaamayba xoogaystay in la dhiirigeliyo intii aad xukuumadda muxuu ahaa joogteen oo maalintii aan xukuumaddu aan muxuu ahaa xilka aan la wareegin weli aan soo gaadhin stageka xayeysiinta ayaa ilaahay mahadii culayska wasiirka iyo dhiijiga iyo tiimka madaxda nagu hayeen aan ku guulaysanay in mashruucaasi uu hirgalo oo la xayeysiiyo 14 abriil 6 cishana oo hawada ku jiro oo la furay 14 juun la furay inta waxa dheer maalintii la furayay sidee agaasimaha guddiga 31 shirkadood oo caalami ah ayaa goobtaasi keensaday badhakii wasiir Bayle ama Dr. Bayle oo nala fadhiyay maalinta wuxuu la kaftamay qoliyaha badhariiska kamid oo wuxuu waxa talaagada oo 11,000 pages ayaa bidhaka keliyata ayuu keenay guddi qiimeyn oo technical engineers oo 3 stage oo ugu dambeysay qoliyaha banka adduunka oo qiimeynta ugu dambeysay lahaa ayaa iska daamaray boqolkiiba 70 shirkadaha soo xareystay waxay ahaayeen Asian China ugu bato boqolkiiba 13 waxay ahaayeen European boqolkiiba 13 waxay ahaayeen North America halka boqolkiiba 4 ay ka ahaayeen muxuu ahaa Allahumma salli ala Muhammad Africa ay ka ahaayeen finally ilaahay wuxuu calfay إذا سي transparency دي جيب حسية أو technical evaluation هي financial evaluation كمركي اللي سكودري كقول الشركة ده ما أنت لو يدوس أحد الراد ما أنت نسايتي lower رجيسة وإيس يوروبيان وإسلوفيكيان وحلا إلى مجاعي كبيور هرونا ذلك لحية هو المشروع هرو قبته كنت كاس كنا فلينه إن أنا ندي بدونين مركل السوق ضرب حوها جودهان process كارد ده إنه هيان كي يشوفني قدراس ما أنت محوها لبحيي وزارة تمتي بحسي unit كمشروع هيرجليني أنا وأنا كم حوها تيمهان أن كودا شغلنا أي حوها أن كودا شقينه وحلو قبتي وقبضنان لبيت وان بلاد وكبل عامي ما أنتي سنين هنا دافتي كبل عامي قال هذا وكبل عامي كل صدق ماتش كبل عامي وكل ما عنده هدي له هذا صدق ماتش لو كل يخدمين وقت لكن وده هذا الكي يهشيس كي هرع هاي كونتراكت كان كل شيء وكسوه الرئيسين دونه حوها حلقاس وغيران 3 بلود أما 4 بلود هذا كراكيس لكن هو بدنان لم يتوب بلود إنهم حوها اللي جارو هذول لم يتوب بلود ضعفوا مالين كستا 0.5 جناحة والعكتي جودة أيها كل عدون تم حوها يعني شركة كل عدون هذا أنا قستشن جارا لسمينين محل فائدة دونا وحوها مشروعا دقي مجالة وهالكين لفر يا حاج محمود the more far of Somal of border development وقدوي وحلا لقى فائدة دونا وضلك مجالة جارهان ay ka faa'iidi doontaa in dhaqaaluhu uu kabco faa'iidada koobaad ee laga filayana waa in boqolkiiba 50 qiimaha koronto halkii 2025 uu taagnaa
iska dhimo ugu yaraan boqolkiiba konton halkii uu taagnaa ugu yaraan iska dhimo waxaan heshiiska lagula galay shirkadda isla markaana haddii duruuftiisan ku socoto la gaari doonaa 30 senti inay Boorama ku hesho muxuu ahaa korontada ku hesha hadii la hayra taasi hadday bilaabato maxaa bilaabmaya warshadayn baa bilaabaysa kobac dhaqaalaha bilaabmaya waxaa bilaabmaya isu socodka oo kordho oo magaalo warshada ka bilaabmeen oo ay ka bilaabmeen muxuu ahaa dhismaha oo bata maadaama uu jabay korontadii living costkiina uu hoos u dhacayo waa run faa'iidada koobaad ee laga dhaxlay inta aan la gaadhinba qiimuhu wuxuu ahaa in shirkadihii korontada ee magaalada Boorama oo dhowr iyo toban ahaan jiray berigii ugu dambeyn laba ku dambeeyey ay maanta mid yihiin oo la yidhaha Awdal Electricity Company nin odayo halkaa fadhiya ayaa xalay nagula kaftamay oo wuxuu yidhi marka shirkaduhu ay midoobaan monopoly bay nagu qabanayaan laakiin dowladuhu xukuumadaha ma hay dowladuhu waxay berifeer gareeyaan oo ay markastoo door bidaan monopoly regulated ah haddii monopolygu regulated yahay wuxuu ka fiican yahay wax fragmentation oo isbarbaryaacaya 7 xarig oo gurigaaga dul maraya 4 saacadood oo kuugu jira waxaa ka fiican hal meel oo la xisaabtamayo kiyo ballanqaadkuna yahay in qiimaha korontadu intaas oo jabi doono waxaynu ka faa'iidi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo in 15 gigawatt hour oo muxuu ahaa neefta dhiqowga hawada keenta hoos loo dhigo waxaynu ka faa'iidi doonaa ugu yaraan 22,000 oo foosto oo shidaal inay noo seef garoobaan sanad gudihii taas waa waxyaabahan u bedelaya marka dambe qiimaha rasmiga ah inuu qiimo hoos inoogu dhaco waxaan ka faa'iidi doonaa in loska korontada ee ku dhex luma xadka ama commercial kaga luma shirkadu oo maanta taqriiban dhowr iyo soddon maraya u dhowr iyo toban haddii la hayla soo gaadho markuu fulo si haddaba loo hubsado habsami socodka mashruucaasi wasaaradda waxay nagu hogaaminaysay in shirkad kasta oo contract la siiyo ama ha noqoto kii berbera ama ha noqoto kan iyo qaybaha kale ee taabanaya caafimaadka iyo waxbarashada oo 750 iskuul oo dalka oo dhana oo taqriiban 12 kamid awdal ku yaalaan iyo 7 xarun caafimaad oo awdal iyo silal ku yaalaan 7 kamid ku yaalaan 40 xarun caafimaad oo 7 kamid ama 8 kamid awdal ku yaalaan iyo silal iyo 750 iskuul oo isaguna component gaar oo already fulay oo imika socda wasiirkuna uu ka dhex dhigay goobaha waxyaabaha mid kamid ah already ka soo dhagax dhigay ayaa diijiguna hore uga dhagax dhigay muxuu ahaa bariga dalka ayaa isaguna inoo fulay kan haddaba waxa lagu xiray shardi ah in shirkaduhu si ay u ilaaliyaan tayada iyo abdada qiimaha ay gelinayaan 10% performance guarantee dalkeenu marka mashaariicda bangiga la joogo waxay ka duwan yihiin mashaariicda kale ka helay international partnerska xisaabiyaha guud baa central maamulaha rasmiga ah ee mashaariicda bangiga adduunka oo dhan isugu soo yimaadaan maxaan uga jeedaa waa country system bay maraan saadaradeed marka wasaaradda maaliyadda laga tago oo ah saxiixaha rasmiga ah maamulkiisa xisaabeedna xisaabaadka guud gacanta ku hayaan 10% kamid ah macnaheedu haddaan berbera eegno 1.9 million ayaa ka yaala bank guarantee aan ka haynaa halkana waxaan ka haynaa 10% oo u dhigmaya muxuu ahaa milyan iyo 400,000 oo loogu talagalay performance guarantee oo ah damaanad qaad sida saxda ee shaqadu u socoto haddii wax khadamaan lacagta ay bannaan noqotaan lacag kasta oo la bixin inta mashruucu socdana waa result payment marka shaqadu dhamaato ee la tasgarayso un baa paymentku uu baxaya wax hore oo advance haddii advance dalbado waxa ka yaala maxay advance guarantee baa ka yaala mudana yaaliyo marweyn haddii intaan ku dheeraaday waxaan ugu talagalay inta dambe oo dhani ay nuxurka la isla fahmo waxaan ku rajaynayaa Boorama oo bilicsan oo mashruucaasi si fiican noogu dhamaaday way mahadsantihiin mar labaad xukuumadda oo nagu daba joogtay oo saacad muxuu ahaa tiimka gacanta ku haysana aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa waxaan leenahay waa kaamil dhalay ilaahay waxaan ka rajaynayaa maalinteeda inaynu u joogno xadhika jarka maantana waa dhagax dhiga maalintaan aanu joogno haddii ilaahay yidhaa maxay xadhika jarka innagoo caafimaad qabno oo nool aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu